Assalaamu calaykum kusoo dhawaada janaalkayga magacayga waa Warsan maanta waxaa ka bilaabaynaa casharkeenu daahinta koriinka ciyaalka marka muxuu yahay daahinta koriinka ciyaalka daahinta koriinka ciyaalka waxa way markuu cunugii ciyaalka ficiisa kadib dhaco hal qayb laba qayb ama ka badan oo qaybabka koriinka marka tusaale ahaan waxaa ka soo qaadan karnaa cunugii oo laga rabay inuu dhoola cadeeyo inuu dhoola cadeyn cunugii oo laga rabay inuu socdo inuu soconin cunugii oo ficiisa hadlayaan inuusan hadlin oo bilaabin inuu hadlo marka haddii aan ka hadalno daahinta koriinka waxaa la dhahay inta ugu badan mala yaqaano waxay saameeyey iyo waxa u keena cunuga inta kalena waxaa la dhahay haddii ciyaalka inta ugu badan la dabagalo oo la daryeelo way ka weynaadaan oo way ka baxaan oo ciyaalka fucoodii gaaraan ciyaal qaar laakiin si kasta haddii loola daryeelo waxaa la dhahay inta uu qayb yar baa gaarin ciyaalka oo weli daahintaas qabo oo markaas cudurro lagu sheegaa oo cuduradii hadhowtii bay noqonaysaa in lasii baaro waxay qabaan ayagoo inta ugu badan 5 sano jir iyo meelahaas oo kale markay gaaraan iyo yara caqliyeystaan oo la arki karo inta ugu badan waxay ayaka iyo ciyaalka facooda saa'idka uga kala badan ay ku kala duwan yihiin marka noocyada kala duwan oo daahinta koriinka hadaa ka hadlayno marka ugu horeysa waa dhaqdhaqaaqa laftirkiisana laba qayb u kala bixin karnaa marka qaybta koowaad waxaa way dhaqdhaqaaqa waaweyn sida socodkoo kale qaybta labaadna waxaa way dhaqdhaqaaqa yaryar oo camal qoriinkoo kale marka cunuga qalinka qaadanayo kale labada farood isku haayo kaas waa dhaqdhaqaaqa yaryar qayb kaloo labaadaa jirto oo hadalka iyo luuqadana cunuga marka ciyaal qaar baa ku liito oo ka daaho hadalka iyo luuqadda fahankeeda qaybta saddexaadna waxaa waaye maskaxiyan ciyaalkii maxaa la dhahaa wax qaar ay fahmayaan jiraan wax qaar saa'id ma u fahmayaan cunugii waxaa arkaysaa inuu xitaa iskuulka maybe ciyaalka kale ka agdhacayo oo gaarin ciyaalka oo isku klaaska yihiin laakiin waxaas ma lagu arki karo cunug saa'id u yar oo haddii laga soo qaado haddana tusaalo cunug 2 sano jir oo kale iskool ma aado gurigiisuu jooga marka waxaasoo kale hadhowtiyoo kalaa la baaraa laakiin wax cunugaas la eg oo la baari karaa jiro marka waxa saddexaad oo la fiiriyo waxaa waaye cunugii seebuu u dhaqmaa markuu ku jiro dadka mujtamaca kale markuu ku jiro dadka seebuu ula dhaqmaa seebuu ula hadlaa seebuu u dhex jiraa seebuu ula macmiilaa marka ciyaal qaar bay ku adag tahay sidii dadka kula macmiilaan ama qaylinaya saa'id u buuq badan qaar qaylinayno iska aamusan oo ciyaalka xitaa facooda la ciyaarayn ciyaarta marka ciyaalka loo fiiriyo wax badan baa laga arki karaa ciyaartoodii sidii bas u ciyaaraan marka insha Allah taas waa gaari doonaa maanta laakiin waxaan ku egnahay inaa fahanno horta waxay tahay daahinta oo koriinka marka asagii laftirkiisa 3 qaybood bay ciyaalka u kala bixiyaan markii intaas fiiriyaan waxaa la fiirinayaa cunugii ma hal meel bas buu ka liitaa oo ciyaalka kale uu ka daahay ma 2 meel iyo ka badan uu ka liitaa waa qaybta labaad qaybta saddexaadna waxaa la fiirinayaa inuu wax kastaba si maxaa la dhahaa uga daahay marka qayb kastaba si inuu uga daahay oo haddii laga hadlaayo cunuga siduu u hadlaayo wax uga daahay haddii siduu u fakaraayo wax ka daahay haddii siduu u socdo wax ka daahay waxaasoo dhan hadduu hal mar ka daahay waxaa la dhahaa waa qaybta saddexaad marka adduunyada maxaa la dhahaa ururka oo caafimaadka waxay dhahdaa 10% oo maxaa la dhahaa waddan kaste dadka degan waxaa la dhahay wuxuu qabaa curyaannimo hal ama ka badan
waxaa waaye halkii qof maxaa la 10 haddii kusoo dhaafto hal qof wuu qabaa curyaannimo. marka waxaas ma aha wax oo loo qaadan karo qafiif. marka waa wax laga fikra inay tahay oo insha allah laga rabo in laga shaqeeyo. maxay muhiim u tahay ciyaalka la baaro oo laga baaro daahinta koriinka? muhiim waxay u tahay ciyaalkan haddii loo helin dhaqso inay ka daaheen koriinka oo dhaqso loo caawinin, hadhowtii waxay ku adkaanaysaa inay wax bartaan oo hadhowtii koriinkii laga caawiyo. koriinkana wuu kasii darayaa oo daahintiya kasii darayso. marka caawimaad waa in dhaqso ciyaalka loola gargaaraa. marka oo cilmi baarista la sameeyeyna waxaa la arkay in ciyaalka ugu fiican tahay in la qabto markay dhashaan ilaa 3 sano. waa timeka ugu muhiimsan oo ciyaalka koriinkooda oo laga talin karo oo markaas dhaqso loo gargaari karo, markaas oo hadhowtiina saa'id u saameynaynin. haddana waxaa kaloo jirto markaste waxaa muhiim ah inuu ciyaalka markuu waalidka ay ku arkaan wax inay koriinkooda ka daaheen ama wax ay ka shakiyaan ay u sheegaan dadka oo dhakhtarkooda ama dadkii u tagayaan oo checkinka oo baarayo. inta ugu badanna waxay sameeyaan inay ciyaalka baaraan markuu dhasho marka ugu horeyso ilaa 9 bil, markaas haddana markuu jiro 1 iyo bar, haddana markuu jiro 2 sano iyo bar inta ugu badan. laakiin waxaas waxay isku bedelaysaa waddankaa joogtid, haddii aa haysatid qof aa u tagtid, wax badan bay ku xiran tahay. marka ugu dambeysana maanta cashirkan intaas ku egyahay, laakiin waxaa rabaa inaan ka hadlo ceebta marmar la ceebeynayo ama waalidkii la ceebeynayo ama cunugkii la aflagaadeynayo. taasna ma fiicno, wuxuu ilaahay ku qadaray waaye oo qadarta ilaahay anaka maxaa la dhahaa wax inaan ka sheegno ma fiicno. iyo in qofkii la yaso marmar la arkaya oo qaybo badan adduunka waddankeenana way ka jirtaa, dadkeenana dad qaar oo saas ah jiro. taasna ma fiicno, wuxuu qof ilaahay ku keenay lagu qabsado. marka waxaa dhihi lahaa maxaa la dhahaa raxmad u yeesha dadka oo dadka saas ahna raxmad u yeesha. ilaahay raxmadiisa hana soo gaarto oo insha allah. haddana waxaana la dhahay yaasan noqonin dad oo dadka aflagaadeeyo oo dadka maxaa la dhahaa magacii jeclayn ugu waaco xitaa. marka insha allah intaas baa waana idinkaga tagayaa. insha allah intaasna maanta waa ka faa'iideen. beri ka maalin waxaa ka bilaabeynaa haddana muxuu yahay sababaha oo ku keeni karo ciyaalka inay ka daahaan koriinka ciyaalka facooda.